السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa hoyga dhiirana English Learning Funnies qaybtiisa YouTube-ka. Haddaba luqadda Ingiriisiga ku baro si fudud adoo nagala soconay barnaamijyada kala duwan aan u soo dhigno bartaan YouTube-ka sida conversational practice wada sheekaysi kelmado topiyo iyo mowduucyo kala duwan aan bartaan YouTube-ka soo dhigno. Haddaba subscribe noo saar haddaad hore u noogu saarneed qalbi ka ogsooni Allah ku sharfo. Waa aniga Abdisaaq Muuse Axmed Abdisaaq dhiirane. Inshallah maanta waxaynu isla eegi doonaa topic about effort is the key to success. Dadaalku waa furaha lagu guuleysto. Effort is the key to success. Dadaalku waa furaha lagu guuleysto. Sidaynu ognahay, without effort is without success. Dadaal la'aan waa guul la'aan. Horana loo yidhi no gain no pain. Nin aan shaqaysanin shaah ma cabo. Inshallah topicani waxaanu ku eegi doonaa muhiimadda ugu weyn uu leeyahay dadaalku, sidoo kalena uu ka qayb qaato inaad guushaada gaadho. Yacni the priority-ga koowaad ee magaranaysa aad ku gaari karto success-ka amba guusha waxa ah effort-ga amba dadaal. Waayahay waan iska bilaaban doonaa. As wise person sida uu qofka aqliga badani as wise person sida qofka aqliga badani can comprehend uu fahmi karo can comprehend uu fahmi karo can comprehend uu fahmi karo. As wise person sida qofka aqliga badani can comprehend uu fahmi karo amba uu fahmi karo effort dadaalku effort dadaalku effort dadaalku is the key waa furaha is the key waa furaha to success lagu guuleysto to success lagu guuleysto and progress sidoo kalena lagu gaadho horumarka and progress sidoo kalena lagu gaadho horumarka. And simply si fudud and simply si fudud we know waxaynu ognahay we know waxaynu ognahay that no success inaanay guul jirin that no success inaanay guul jirin can be achieved lagu gaadhaa can be achieved lagu gaadhaa can be achieved lagu gaadhaa without stamina dulqaadasho la'aan and hard work iyo shaqo badan oo la qabta and hard work shaqo badan oo la qabta. Yani wuxuu ku leeyahay sidaynu ognahay waynu ognahay that no success in aanay jirin wax guula can be achieved lagu gaari karo si fudud lagu gaari karo adoo u samayn without stamina dulqaad adoo samayn and hard work sidoo kalena aanay ka goonayn shaqo badan aanad la iman. Yani wuxuu ku leeyahay haddii aanad la iman stamina dulqaad and hard work iyo shaqo badan oo aad qabata no success weeyaan. taas waxa weeyaan no success inaanad guul aanad helayn. waayahay hence maadaama when we want markaynu doonayno to reach inaynu gaadhno our goal is hadafkeena our goal is ahdaafteena amba hadafkeena we usually sida caadiga do waxaynu u qabanaa our best sida ugu wanaagsan do waxaynu u qabanaa our best sideena ugu wanaagsan to assure sidaynu u muujino amba aynu u caddayno that we eventually attain success inaynu mar horeba aynu gaadhnay guusha that we eventually attain success inaynu guusha gaadhnay already ama mar horeba eventually aynu gaadhnay isla markiiba. Yani wuxuu ku leeyahay when we want markaynu doonayno to reach inaynu gaadhno our goals ahdaafteennaba we usually sida caadiga do waxaynu u qabanaa our best sideena ugu wanaagsan to assure sidaynu u xaqiijino that we eventually inaynu gaadhno gebi ahaan that we eventually attain inaynu gaadhno gebi ahaan success guusha. you know waad ogtahay this word kelmadan everyone qof kasta has dream wuxuu leeyahay rio but laakiin
but لكن success guushu but لكن success guushu goes waxay la jirtaa amba ay mac u tahay to those kuwa but لكن success guushu goes waxay mac la tahay amba ay u jirtaa to those kuwa who kuwaasoo work u shaqaysta at it yada yani wuxuu ku leeyahay guushu mar walba waxay la jirtaa amba ay mac la tahay those kuwaasoo work at it kuwa u shaqaystoon يعني wuxuu ku leeyahay kuwa aan u shaqaysan magaransa mac lama aha isla markaana lama aha uma jirto waayahay aan strive u dadaala for it yada but laakiin never too lazy lama jirto kuwa caajiska aan idle iyo kuwa magaransa sidoo kale caajiska idle iyo lazy waxay ku kala duwan yihiin lazy waxa weeyaan waa qofka caajisay inuu hawshii qabto kana waxa weeyaan idle waa qof nacas isla markaana mar walba ay niyadiisu ay ku soo dhacayso mar awaal nimay taaqaw waxyaalo badan ay ku soo dhacayaan magaransa sidaaba uu ku diinayo oo nacasa aan without point ujeedada aan effect aan lahayn ujeedada ahdaafka aan lahayn marka waxa uu leeyahay but laakiin success guushu goes waxay u jirtaa to those kuwaasoo work u shaqaysta at it yada aan strive u dadaala for it yada but laakiin never too lazy laakiin lama jirto kuwa nacasiinta amba kuwa ka caajiska aan idle iyo kuwa magaransa aan daneynin waayahay way back u soo noqo to studies waxbarashadeena way back u soo noqo to the studies waxbarashadeena are they similar miyay siman yihiin the students ardayda are they similar miyay siman yihiin the students ardayda who kuwaasoo strive u dadaala to study inay bartaan and memorize inay xafidaan their lessons cashiraantooda yani wuxuu ku leeyahay way back dib ugu soo noqo to the studies waxbarashada and are they similar miyay siman yihiin the students ardayda who kuwaasoo strive u dadaala to study inay bartaan and memorize inay xafidaan their lessons cashiraantooda and those iyo kuwa who don't do so iyo kuwa aan magaransa iguna aan waxba xafidin isla markaana aan magaransa aan dadaalin waxbarashada miyay siman kuwaas ku leeyahay يعني ardayda dadaashay iyo ardayda aan dadaalin miyay siman yihiin can they be similar miyay sinaan karaan can they be similar miyay sinaan karaan in terms labadani of speaking halka hadalka writing qoritaanka and so on iyo waxyaalaha la midka ah yani wuxuu ku leeyahay ardayga magaransa dadaalaya ee magaransa cashiraantiisa xafiday isla markaana magaransa waxbarashadiisa ka miro dhalinaya and those who don't do so kuwa waxaasba aan ka warhayn isla markaana aan qabanay isla markaana aan xafidin miyay ku leeyahay can they be similar miyay in terms labadaasi of speaking halka hadalka writing halka qoraalka and so on iyo waxyaalaha la midka ee soo raacda waxbarashada way the answer jawaabtu is no waxa weeyaan magaransa ma sinna the answer jawaabtu is no waxa weeyaan ma sinna soo sidaa daraadeed to come conclusion guniga gunaanadkii we have to be waanaynu niyadiina aan ku hayno always badanaaba in our minds sidoo kalena ay ku jirtaa maskaxdeena the prophet kelmadda witaasoo says tiraahdaa no gain no pain nin aan shaqaysan shax macabo insha Allah maanta halkaas aynu ku joogi doontaa waan nigo Cabdisaaq Muuse Axmed Cabdisaaq Dhiirane insha Allah waxaan nigo codsanayaa
share iyo like taba alla dhacdaan si fiidiyoga nu gaadho dad badan insha Allah aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin subscribe tahay haynagu iloobina